محمود حسين حسن جبوتي oo wakiilka maamulka galmudug ee bariga iyo bartamaha Afrika waxaan filayaa kaalmihii suugaanta ee halka la idinku soo bandhigay inaad ka wada maqsuudeen sida Fortuna idin sheegtayna bandhig faneed gaar ah oo ay ugu tala gashay dhammaan dadka ku nool Nairobi ayay qaban doontaa maalinta ciida haddii alla idma habeenkeeda iminka waxaan ku wareejinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug محمد أحمد عالم سيو كلمة ير هل كانوا غير هذا هاي مدحويني هلو ها واكم أغلى مدحويني هلو سفيان ها سيو نكسن والله مكسن سيو نكسن اوكي وايد سلام هذا وما سنتين halka waxa joogo guriga wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynihii waxaana codka galmudug ku hadli doona madaxweynaha ayaan idinku wareeji doonaa intaas kadib dhalinyaradana aada u salaamaya walow ay fiicneed inaa caawa idinla joogo haddana nasiib wanaag shaqo ayaan u joogaa magaalada muqdisho saas daraadeed marka madaxweynaha idinku soo dhaweynayaa si uu codkiisa ugu dhiibto caawa xafladda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كبعدي وحان مركو السلام يا دنياها دالية إست أفريقيا ولمان أمتا جلد جالية نيروبي وإذ ود السلام يا دمانتين وحان عادي هذا ومهد علينا دليردي أباب الشيء أرنكان هي أنتي أضيال وحجرد وكلا قيب كعبتين وزير ذا سيدو كلا وسلاميا يو جارهان شحوب لوحان سلاميا قبلها قلمدك سلام كبعدي آدي آد أياد وما تنتهين حسكاس آد حسيتان تندور دي قلبك رمهانتي معامل كستا حدي آن وبدلحين مجري كرو وحي آساسي في غرق إلى أي حد سعود كيسان وإيك وايا وأنا إذا كان مهد علينا يا إلهي بأنا مهد كله قلمدو ما أنت وسيل عاصي إلى يهدر مرحلة ذكر الدول أو بدن صومرتي ذلك مرسي أن تجيني هو الرئيسي وحبر شدو أبي وزيتي إلى لغاية كل كتير ناشا magaaladu ma dhismeen way burbursaneed magaaladii way dhisantay iskuuladii maanta waxay marayaan 54 iskuul oo maanta heer sare ah iyo 2 jaamacadood oo ka furan xagga caafimaadka asagana horumar aad iyo aad u fiican baa laga gaaray ilaaha ma hadda iska leh degmo walba waxaa laga sameeyey MCH oo ka saacidaya dadka dhibaataysan xanuunsan in sida degdega ah wax loogu qabto ilaahay idankiisana dhowaan waa la sii kordhin doonaa haddii alla idmo xagga ceelasha laftirkooda oo dadka dhibaatada ugu daran ee haysay biyahay ahayd ceelashiina guud fiican ayaa la gaaray inkasta oo aan la wada gaarsiin meel walba iyo sidii la rabay waata gaari doonaa haddii ilaahay idmo annagoo isku duuban aan wada galno dadaalkaas midda kale waxaan ilaahay mahadiis ah galmudug inay ballaaratay beelihii galmudug oo galguduud iyo mudug ahaa
in golihii wasiirada ay ka qayb galeen oo ay ka mid yihiin maanta oo qaar hadda idila fadhiyo insha allahu waxaan baarlamaankiina waa la ballaari doonaa dhowaan markaanu muqdisho ku laabano insha allah gaalkacyo aanu ku laabano muqdisho ka tago marka waxaa mahad ilaahay ah sida niyadsamida iyo dadaalka iyo guusha annaga oo aada ogtihiin xagga wax soo saarka ila dhaqaalaha dekedii aanaan lahayn deked laakiin dhowaan aan ku rajaynayo in horumar laga gaari doono qolooyin aanu wada hadalnay oo dhowaan ayay tegi doonaan survey oo maantaba gaalkacyo ka degay cabir iyo wax soo qaadi doona in qaarkiin la socdaba waa laga yaabaa arrimahaasina guul bay maraysaa waxaana rajaynayaa inaan ka bixi doono dhaqaale xumada iyo waxa lagu jiro waxaan marka leeyahay xafladeeda kale ilaahay guul iyo barwaaqo inuu nagu gaarsiiyo meel kasta ummadda soomaaliyeed jirtana waa salaamaynaa dhammaantiin intiina fadhisana oo reer galmudug ah iyo inta martida kale idinla joogta waa idin wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas waxaa waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed caalin dhinacii kaalimaha suugaanta ee noo bilaabanaya laakiin 2 daqiiqo oo khudbad ah cabdirasaaq mire kulane gudoomiyaha golaha dhexe ee ururka dhalinyarada galmudug ee bariga iyo bartamaha afrika cabdirasaaq 2 daqiiqo oo quran kadibna suugaanta noo bilaabanayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مروين دمان مرت شرف كسو قيب قشي حفلدان وحان يدكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سلام يا ماموينك هويوينكينا دمان وزيرة كسو قيب قل حفلدا وحان سيقاره سلام قاسو قدريا قدوميها جالية أحمد حرسي إن عدي oo gudoomiyaha jaaliyadda East Africa oo mar walba u taagan horsocodka galmudug state iyo sidee ugu tagsan lahayd nabad waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto aasaasidda ururka dhalinyarada galmudug state ee East Africa ururka dhalinyarada galmudug ee East Africa waxaa la aasaasay sanadu markay ahayd bishii koowadeedii 2010 sidaan ka warqabno waxyaabaha loo aasaasayna waxaa ka mid ahay baahi badan oo jirtay dhanka dhalinyarada galmudug state iska warqab la'aan ee ku haysatay East Africa sida ogsoontihiin xafladan caawa ee soo maamuuseen jaaliyadda galmudug waxaa gacan weyn ka geystay dhalinyarada galmudug state ee East Africa ayagoo ku mahadsan midaas waxaa sidoo kale idiin sheegayaa sidoo hadaatay wasiirka ka dhawaajiyay in dhalinyarada galmudug East Africa dhammaantood ay midoobeen gacantana ay isqabsadeen